ururka tawfiiq waxa uu codeeyay 26,003 maamulka galmudug waxaa ka taagan xiise dagaal kadib markii guddiga doorashooyinka ay ku dhawaaqeen doorashadii 30kii bisha aynu kasoo gudubnay Julaay ka dhacday magaalooyinka ay kamid tahay Dhuusamareeb, Cadaado iyo sidoo kale magaalooyin kale oo kamid ah maamulka galmudug. waxaan kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay cidda ku soo baxday doorashadan iyo sidoo kale xisbiga uu hogaamiyo Sheekh Shaakir sababtay u aqbali waayeen natiijadii maanta ka soo baxday maamulka galmudug oo ay ku dhawaaqeen gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Cabdikariin Axmed Xasan. soo dhawaada saaxiibayaal, waa maalinimo Isniin taariikhdu ku aasaysan tahay waa 3 bisha 8 Agosto sanada 2026. maanta ay taariikhdu ku aasaysan tahay 3 bisha 8 Agosto guddiga doorashooyinka gaar ahaan gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Cabdikariin Axmed Xasan ayaa goor dhaweeyay ku dhawaaqay doorashadii ka dhacday maamulka galmudug ee markaasi dowladda federaalka Soomaaliya ka qabanaysay ee qof iyo codka. guddiga doorashooyinka waxa uu sheegay in xisbiga cadaaladda iyo wadajirka GSB uu hogaamiyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo helay 63 cod, halka markaasi waa xisbiga ku soo xiga oo helay 12 cod. halkaasi waxa laga dareemayaa kala fogaansho u dhaxeeya xisbiyadii ku tartamaya doorashadii ka dhacday maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. maalmo ka hor ayay ahayd markaasi xisbiga tawfiiq uu hogaamiyo Sheekh Shaakir ay qaadaceen doorashadan iyaga oo sheegay in wakiiladii uga qayb galay doorashadan jirdil xooggan loo geystay, waxayna tilmaameen in doorashadan ayna aqbali dooneen. hase ahaatee maanta oo Isniin ayaa doorashada lagu dhawaaqay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo soodimaha qaranka ayaana doorashadan ku dhawaaqay gudoomiyaha guddigaasi Cabdikariin Axmed Xasan. waxa uu tilmaamay in doorashadu ay si wanaagsan uga dhacday maamulka Koonfur Galbeed Aaraada waa markaasi maamulka galmudug. waxa uu sheegay in xilligan wixii ka dambeeyay loo jeeysan doono maamulka Hirshabelle oo ah maamulka kaliya ee dowladda federaalka Soomaaliya uga harsan marka la eego doorashadan qof iyo codka ay ka qabanayso dowlad goboleedyada dalka. waxa uu tilmaamay in doorashadii ka dhacday maamulka galmudug ay ahayd mid ku aasaysan cadaalad iyo wadajir. waxa uu sheegay in xisbiga cadaaladda iyo wadajirka ee GSB uu ku guuleystay doorashadan, waxaana halkaasi la filayaa in madaxweynaha maamulka galmudug uu ku soo baxo waa markaasi Liibaan Axmed Xasan oo loo yaqaan Liibaan Shuluq oo ololo weyn ka waday maamulka galmudug una tartamayay madaxweynaha maamulka galmudug xilli uu meesha ka baxay waa markaasi madaxweynihii dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor. xisbiga cadaaladda iyo wadajirka oo la xooggan ka waday maamulka galmudug ayaana haatan waxa uu muuqda mid ku guuleystay doorashadii ka dhacday maamulka galmudug. lama oga sida ay ku aqbali doonaan ururyadii ama markaasi urur siyaasadeedii kale ee ka qayb galay doorashadan oo maanta Isniin looga dhawaaqay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug. xisbiyo badan ayaana doorashadaasi ka qayb galay. xisbiga ugu horeeya oo ku soo xiga cadaaladda iyo wadajirka ayaa waxa la sheegay inuu helay 12 cod, halka xisbiga ku xigan uu 6 cod helay. ilaa 2 xisbi oo markaasi gudoomiyaha guddiga doorashooyinka uu ka dhawaajiyay ayaa iyaguna min 1 cod helay. taasi waxay u muuqataa in markaasi doorashadii golaha wakiilada iyo golaha dadka deegaanka ee maamulka galmudug ay ku guuleysteen maamulka galmudug ee ka dhacday ay ku guuleysteen markaasi xisbiga cadaaladda iyo wadajirka oo loo soo gaadiyay GSB oo hogaamiyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka iyo sidoo kale urur siyaasadeed ka qayb galay doorashadan ayaa iyagoo qaadacay. waxay sheegeen in xilligan doorashada ka dhacday maamulka galmudug ay tahay mid ku shubasha, waxayna xisbiga hogaamiye madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ay ku eedeeyeen in doorashadan uu qabtay mid ku shubasha. waxayna markaasi soo hadal qaadeen doorashadii ka dhacday maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo aynu ogeynay wixii halkaasi ka dhacay iyadoo markaasi xilligii la dooranayay Sheekh Nuur Aadan Madoobe oo meesha isaga baxay Shariif Sheekh Xasan oo ahaa markaasi madaxweynihii hore ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya si weyn ugu tartamayay doorashadii ka dhacday maamulka Koonfur Galbeed. waxa uu soo hadal qaaday in qacmaha loo qabtay Sheekh Nuur Aadan Madoobe si kastana ay dowladdu ay markaasi ugu cadaadisay sidii uu ugu soo bixi lahaa Sheekh Nuur Aadan Madoobe. isla haatan doorashada ka dhacday maamulka galmudug ayaa dhaleecayn kala duwan markaasi wajahaysa iyadoo urur siyaasadeed qaar gaar ahaan ururka Ahlusunna wal Jameeca oo markaan uu wajahayo inuu markaasi ku dhawaaqi doono dagaal ka dhanaa dowladda federaalka Soomaaliya. Sheekh Shaakir oo mar dhawaa oo 2 maalmo ka hor warbaahinta la hadlay waxa uu tilmaamay in doorashadan ay ahayd mid ku shubasha. waxa uu soo hadal qaaday in doorashadan marnaba ayna aqbali doonin natiijo kasta oo ay soo saareen guddiga doorashooyinka.
shalay ayay ahayd markii uu magaalada Dhuusamareeb caasimadda maamulka Galmudug oo kula kulmay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo markaas uu hogaamiyo Cabdikariin Axmed Xasan waxay ka wada hadleen qaabkii loo aqbali lahaa natiijada balse maanta oo isniina natiijada la soo saaray ayaa u muuqata mid markaasi boob ku salaysan iyadoo markaasi la arkayay in doorashadii ka dhacday maamulka Galmudug ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay gacmo qabteen xubnihii ka socday golaha wakiilada urur siyaasadeedii ka qayb galayay doorashadii ka dhacday maamulka Galmudug guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ee qaranka iyagu marar kala duwan dhaleecaynayay wajahayaan Cabdikariin Axmed Xasan gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee soodimaha iyo doorashooyinka qaranka marar kala duwan waxaa la arkayay kulamo looga hadlayay sidii loo qaban lahaa doorashada Galmudug isagoo ka soo dhex muuqday gaar ahaan xilligii khilaafka uu kala dhacay dowladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqoor kulan uu markaasi lagu heshiisiinayay Liibaan Axmed Xasan oo ah musharaxa GSB xilligan u muuqday inuu ku soo baxay doorashada maamulka Galmudug iyo sidoo kale kulan kale oo markaasi lagu heshiisiinayay oo una garwadeen oo ka ahaa taliyaha NISA Mahad Maxamed Salaad ayuu ka soo dhex muuqday gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Liibaan Axmed Xasan ama Cabdikariin Axmed Xasan Ayraade doorashadii maanta ayaa la shaaciyay urur siyaasadeed sidoo ku aqbali doonaan lama oga wararka qaar oo soo baxay waxay tilmaamayaan in xilligan markaasi la wajahayo xaalad siyaasadeed oo markaasi kacdoon dadweyne laga qaban doono maamulka Galmudug Sheekh Shaakir oo hogaamiyo ururka Ahlusunnah wal Jameeca isagoo waxa uu sheegay inuu ku dhawaaqi doono barnaamijyo nabadeed oo looga soo horjeedo xisbiga cadaaladda wadajirka uu hogaamiyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya maamulka Galmudug doorashadiisu way isku soo dhamaatay xilligaanna waxa ku soo baxay xisbiga cadaaladda iyo wadajirka oo hogaamiyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya maamulka Hirshabelle ayaa loo jihaysan doonaa maalmaha soo aadan xisbiga cadaaladda iyo wadajirka ayaa markii uu ka soo faraxarsho doorashada maamulka Galmudug waxa uu aadi doonaa magaalooyin ay kamid yihiin Beledweyne iyo sidoo kale magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle kulamo ayaa ka soconaya magaalada caasimadda ee Muqdisho oo looga hadlayo cidda ku tartamaysa xisbiga GSB ee madaxda dowladda Hirshabelle علي قدلاو حسين oo ah madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ayaa isagu la filayaa inuu meesha isaga bixi doono xildhibaano ay kamid yihiin Maxamed Cabdulqaadir iyo sidoo kale xildhibaano kale ayaa iyaguna markaas rajaynaya ama u tartamaya xilkan waxa maara loo leeyahay gudoomiyihii hore ee markaasi gobolka Hiiraan iyo sidoo kale madax kale oo iyagu u tartamaya xisbiga cadaaladda wadajirka ka socda nana doonaya sidii ay ku heli lahaayeen kaarka GSB oo loogu tartamayo madaxda ugu sareysa ee dowlad goboleedka Hirshabelle علي قدلاو حسين marar kala duwan ayuu la kulmay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaana la sheegay in markaas uu ku ekaado 5 sano uu soo hogaaminaya maamulkan magaalooyin ay kamid yihiin Beledweyne sidoo kale magaalada Jowhar iyo magaalooyin kale ayaana markaas la filayaa urur siyaasadeed ka qayb galaya doorashadan inay soo gaaraan maalmaha soo aadan Galmudug iyada doorashada way soo dhamaatay xisbiga cadaaladda iyo wadajirka ayaana ku soo guuleystay balse lama oga sababta ay ku aqbali doonaan ama sida ay ku aqbali doonaan urur siyaasadeed ka qayb gala doorashadaasi waxyaabaha ka soo kordhana wararkeena dambe ayaan kula wadaagi doonaa